السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Kalabayn aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta diiran ee xamaasadda leh. waxa Ilaahay mahadiya nabadda, barwaaqada, roobka iyo horumarka ka socda dalka. Ilaahay baa mahadiis aan uga mahadnaqaynaa. dadweynahana waxaan ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay tabcayaan ee dhulka wax kala soo baxayaan, nabadda, iskaashiga. horumarku labaas ku xidhayahay reer Kalabayn iyo reer Wajaale culays badan baa ku soo socda sanadaha soo socda. wadadii waa soo dhowdahay, dekadina way ballaaratay, dhulkuna waa beeraley. waxaan u baahnaan doonaa dhul ballaaran oo laga dhigo free zone ama dhulka la yidhaha wuxuu ka cagan yahay cashuurta oo loo baahan yahay sanadaha soo socda. dhul badan oo laga yaabo inuu idinku adeeg yahay oo idan ka maarmi karin baa loo baahan doonaa. waxaanu rajaynaynaa 3 sano soo socda ama 4 sano soo socda dhexdooda in loo baahdo dhul la dhigo 1 malyan oo container oo ka faaruqana la dhigo, ka buuxana la dhigo isweydaartaan. shaqo way ka abuurmaysaa, horumar uu ka imanayaa, laakiin waxa la idin la wadaagayaa dhulka iyo dhirta iyo dariiqa iyo guryaha oo culays badan. kaana waa diyaar garoobi doontaa haddii la yiraahdo. laba waxa la idin la wadaagi doonaa iyadoo oo dadka baacmistarka ee Afrikada xidhan ka yimaada oo dalal badana oo afaf gaara ku hadla oo dhaqan gaara leh oo iman doono isdhex galaysaan iyo kuwa ka imanaya dhinaca badda oo halka isku weedaranayaan ay tahay ayaa sanadaha soo socda idinku soo fool leh. waxaa loo baahan yahay aqoontii iyo caqligii iyo garashadii aad uga faa'iidaysan lahaydeen dhaqankiina, diintiina aad ku ilaalin lahaydeen iyo nabadgelyada dadkiina. waa hawl culus oo ku soo beegan aagga Wajaale. da'yarta iyo waayeelkaba u diyaargaroow waa laga rabaa. ugu dambayn waxaanu tacsiin diraynaa taliyaha ciidanka qaranka Nuux oo hooyada shalay lagu aasay halkan. tacsiin u diraynaa Allah u naxariisto iyadii wixii kale oo islaamka arintayba wixii inaga horeeyay Allah u naxariisto, inagana Allah inaga daba naxariisto. dal iyo dad iyo diiba Allah ina barakeeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.